dhiigga caadada si fiican ma iiga soconayo ay leedahay gabadhan kalena waxay leedahay 2 sano dhiig iguma dhicin qalqal ayaa iiga jira xanuunna igu hayaa haddii dhiigga caadada uuna si fiican kaaga soconin ama khalkhal uu kaaga jiro ama muddo badan baa dhiigga caadada kugu dhicin haddaba shaygan gabdhahan iyo adinkaba wuu idin quseeyaa gabdhaha caadada kasoo daaha mar walba ama markuu ku dhaco si fiican aan uga soconaynin iyo gabdhaha xanuunka ku hayo caadadaas muddada dheer ee ka maqan ee mar walba xilligii markii la gaaro xanuunka ku hayo ayaan ugu talagalay shaygan fiidiyowga dhammaysta youtube-ka Laylo Official subscribe soo saara leegna saara asxaabtiinana u sheer gareeya gabar walbo xanuunsan ee caadada ku xanuunsan iyo gabar walbo caadada rabta inuu u saxmo ilaahay subxaanahu wa tacaala caadada ha idiin saxo dhiigga caadada si toos allah idinkugu keeno haddaba shaygan gabdho badan ayaa kasoo falceliyey oo dhiigooda si saxa ku heleen bil kasta ayuu ku dhacaa haddaba ka faa'iideyso dhibaatooyinka caadada kaa fogeynayna ka fogow macmacaanka oo kale iyo stresska oo kale ama maaragtay haddii hilib fara badan ku saaran yahay ama PCOS hadduu ku hayo burobiyoodka dhammaan ayuu ka hortagaa shaygan haddaba shaygan waxyaabaha laga sameynayo haddaba youtube-kayga waa janal dabiib waxyaabo badanaa ka faa'iidi doontaa gudaha u gal caadada gabdhaha ka khalkhalsan ama si fiican aan uga soconaynin ayuu aad u caawinayaa shaygan haddii aad isticmaashi muddo 3 bilood gabar walbana ee xanuunsan ilaahay ha caafiyo qof walbo muslimana allaha caafiyo dhammaantiin soo dhawaada bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayga qaaliga kusoo dhawaada janalka Laylo Official haddii aad igu cusub tihiin subscribe comment share haddii aad hore ila joogteen comment share gabdhaha ka cabanayo caado khalkhalka ayaan shaah u sameynayaa maanta shayganna waa shaah fudud ee gurigaaga laga helayo waxyaabaha gurigaaga laga helayo aad isku dabiibi kartaa waxyaabaha sokorta u badan tahay ama dufanta u badan tahayna ka fogow stresska faraha badan ama walwalka faraha badanna ka fogow waxyaabaha burobiyoodka kuu keenayo ama caadada kaa qaadayo waxaa ka mid ah inaad walwashid mar walba stress ku hayo cuntadaada aan isku dheelitirneen ama waxyaabo dufan badan aad cunaysa ama cayilka faraha badan ama waxaa kuu keeni karo inaad mar walba diiqoonaysa aad walwalaysa waxaad ka fikiraysa aadan ogeen haddaba socodka badi biyo badanna cab waxyaabaha sokortuu badanna iska yareeya haddaba shaygan waxyaabaha laga sameynaya waxaa ka mid ah qorfahan gurigaaga ayuu ku yaalaa waa qorfaha shayga laga sameysto waxyaabaha meesha yaalo waxaa waa alwaraaq alqaari warqadaas carabiga waxaa lagu yiraahdaa alwaraaq alqaari ingiliishkana bayliif ayaa lagu dhahaa waxaa kaloo meesha inoo yaalo dhagayaro 5 xabo camal ah ayaa inoo yaalo muddo 3 bilood ayaana cabaysaa haddii aad doonaysid inuu caadadaada kuu saxmo waa dhagayaro 5 xabo ah dhagayarahaas aad ayuu hormuudka u saxaa heel ayaa yaala 5 xabo filfil ah iyo meesha waxaa yaala joos iyo marmaraamiya waa kan dhexda yaalo joos waa kan jooskan waxyarahan tuma kora usoo qaada waa idin tusaa marmaraamiya geedahan dukaamanka haddii aad gurigaaga ka baxdid dukaankaas horjeedad ka helaysaa waa kana waa dhagayare heel iyo waxa waaye filfil madow 5 xabo ah joos yar marmaraamiya waraaqal qaari iyo qorfo intaas kaliya ayaad isku karkarinaysaa maalin walbo meesha shaahiga aad ka cabi lahayd gaduudan ayaa bedelkiisa gelinaysaa waxyaabaha hormoonka kaa khalkhalinayo ayuuna kuu sixi doonaa insha allah biyahayna soo diyaarsana waa ku shubanaynaa dabka la aadi doonaa insha allah gabdhaha ka cabanayo ama hooyooyinka ka cabanayo ama dumarka ka cabanayo infectionka aad ayuu u daaweynayaa caado khalkhalka ama caadada haddii aad ku xanuunsan tahay dhiigga caadada si fiican ayuu kaaga keenayaa haddaba ka faa'iideyso saas u karkari subaxda hore markaa hurdada kasoo kacay tarmuuskaaga ku shubo haddii aad shaqada aadaysid hore u qaadan kartaa baabuurkaaga hore u saaran kartaa in yar oo bawsa markaa heshid ayaa cabi kartaa hadaa gurigaaga joogtidna
maalintii waxaad cabaysaa koob subaxdii hore iyo koob cabaar markaad joogtid casriyaha. Marka waxyaabaha fikirka badanna joojiya, biyo badan caba, socodkana badi 45 daqiiqo. Maalintii inaad socotid, cagaar fara badan cuna, salar fara badan cuna, waxyaabaha burka, bariiska, baastada iska yareeya haddii aad cunaysid in yar ka cuna. Waxyaabaha maaragtay fitamiinaadka idinka qaadayo, fitamiinkaaga hadduu laaw yahay, haddii maaragtay waa kana shayga waa soo karkarsanay guriga dhan qof walba cabi karo, caafimaadku u fiican yahay, caabuqa jirka ku jiro, herkabka jirka ku jiro, jirkaagana waa qurux badnaynayaan ku dhakaala waji qurux badan ay yeelanaysaa. Haddii cayil fara badan uu ku saaraya, cayilka isla markuu uu kaa dejinayaa. Haddii maaragtay caabuq ka qabto dhanka hoose, infection ka qabto, qoyaan fara badan kaa socdo, isla marka waa ka reysanaysaa dhabar xanuun, xanuunka dhiigga caadada, ama xanuunka dhiigga caadada khalkhalka, ama gabdhaha caadada markuu ka maqan yahay, xilliga teemka uu ku dhici jira markay ay caadada uu ku dhici jiray xanuunkiisa ayay dareentaa. Waxyaabahaas oo dhan oo ka hortagaya xanuun oo dhan, kaar oo dhan. Caadada hadduu tartiib u socdo oo si fiican kaaga soconayn, si degdega nadiif ayuu kaaga keenayaa. Haddaba badan waxaa idin dhaha walwalka ilaaliya, walwalka iska daaya, fikirka badan, stresska faraha badan, maaragtay biyo badan caba, waxyaabaha oo aashitada ama subaga ama sokorta macmacaan oo dhan maaragtay istilaab iska saar, gaduud saar insha Allah. Waxyaabaha cagaarkana cun sida salarka, spinachka, avokadada, qaraha, fruitka gadgaduudan, waxyaabaha adiga jirkaaga qurxinayo, adigana ku dhalaalinayo isticmaal. Shaahigana shaaha madow iska ilaali, shaahigan cab. Gabdhahayga qaaliga dhammaantiin waxaa idin leeyahay videogan like saara, idinkoo like saarna iga tegina, subscribe, comment, share dhammaantiin waxaa idin leeyahay jazaakumullahu khayran. meel kastoo dunida dacaladeeda ka joogtiin, ilaahay farxad aan dhammaanayna allah idin siiyo, ulaa saalixiina dayibiina baariyiin inta haysata allah u barakay, allahuma aamiin. ilaahu ducada annagana ha inaga reebin. videoga xaqiisa siiya dhammaantiinna waxaa idin leeyahay hala sheer gareeyo. Shaayigana sameysta, qorfaha kaliya kugu filan. Haddii aad weysid caleemaha kaleete, filfishoo kale kugu filan, dhegyaraha kugu filan. Ku dadaal naftaadana nafaqee, naftaadana maaragtay daryeel. Adiga isdabiib intaadan maaragtay dad kale aadan ku daalin ama dhakhtar kale aadan ku daalin. Marka hore adiga isdabiib 3 bilood, gacan isku qabo, jadwalka cuntadaada bedel, isbedel qurux badan isku sameey. Naftaada haddii ama jirkaaga isbedel ku sameysi, cuntadaada isbedel ku sameysi, isla markii waxaad arkaysaa caafimaadkaaga hay noqday maasha Allah.